munaasabadani ayaa ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland iyo agaasimaha cusub ee madaxweynaha Soomaaliland soo magacaabay xilkaasi madasha xil wareejinta ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland madasha xil wareejinta ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Dr. Yuusuf Axmed Cali wixii aan islaha qabo meeshii aan u socday imay suurtagalina wax ka qabto sidaa darteed anigu iminka waxaan isu arkayaa nimaan wax alla wuxuu qabtay aan jirin dhinaca kale isna waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland mudane Axmed Muuse Muraad waa xilaad aad u weyn waa xilaad aad u ballaaran horta marka ugu horeyso waxaan ka codsanayaa dhamaantiin inaad igu duceysaan ilaahay ugu hasro xilka isaga maalin maalmaha kamid ah ayaan sida Yuusuf uga tagi doona hadii la yiraahdo Dr. Yuusuf ilaahay waxaan ka baryayaa inta uu Dr. Yuusuf sameeyay in la eg ama in ka badan inaan sameeyo laakiin waa goorma waa hadii la helo wada shaqeyn gabagabadii waxa xilalka u kala wareejiyay labadaasi mas'uul wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland mudane Cabdiqaadir Maxamuud كل مقام لها مقال كل ما أنت هذا البدن أنا جاي جنب أنا ماشى أنا لبدا أقاسم حلك وكل ورشيان دونيا أقاسمي هرد لما أنت أنا وزارة كوكيلة وسير كاي لما شغالها وزارة وحين كسيد وين نقع مفرن geesta kale xil wareejintaasi la mid ah ayaa waxay ka qabsoontay xarunta wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland halkaas oo xilalka kula kala wareegayeen agaasimihii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland iyo agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi madaxweynaha Soomaaliland soo magacaabay madasha xil wareejinta ayaa waxa ka soo qayb galay gudaha shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland waxaana ugu horeyn madasha xil wareejinta ka hadlay agaasimihii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland mudane Maxamed Cilmi Aadam Ilkaase waxaan joogay imika afar bilood hore oo xaqii hore markii kursiga la deedeeyay campaign iyo afartan bilood oo imika ay bishan sanadkan cusub marka ilaahay ma hadii waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu dana xil kale magacaabay waliba isagoo iga tala galiyay walaal anu waan jeclahay agaasimo guud ka dalcaama ka dhaco caadiyan sidoo kale madasha xil wareejinta ee wasaaraddaasi ayaa waxa isna ka hadlay agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi mudane Dr. Axmed Cali Maax hawlaaygu waxay u yara badnaayeen xagga miinada markaad eegtana waa fiilkiyo dhinacii kalaaw marka nasiib baan u leeyahay miinadii markaan meel ku soo hubsaday in beerihii la ii soo celiyo la yiraahdo beeraha ay ka shaqeeyaan wasiirkana aad buu mahadsan yahay waxa gabagabadii xilka u kala wareejiyay labadaasi mas'uul wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland mudane Axmed Muumiseed agaasime aad iyo aad baan kugu soo dhaweynayaa wasaaradda runtii wasaaradda oo jaan qaaday oo aniga agaasimahaygan maanta wasaaradda kale loo bedelay aanu soo dadaalnay oo tacab badan gelinay oo wacyigelin badan sameynay oo wasaaradaha iyo dadku naga yaabanay socodkayga badan iyadoo miisaaniyad iyo budget midna ku shaqeyn shidaal uma isticmaalayna waan soconay waxaan u soconay dadka nuu sheeganay in dalkooda wax kala soo baxaan Xamse Cilmi telefishinka caalamiga ah ee Universal Hargeysa